بدتي إن أنا أنا فكر يا رجال أنا فكر بدتي موي أي كرجينيا dood wadaaggan ay soo qaban qaabiyeen ururka wacyigelinta nabadda ayaa waxaa ka qayb galay doodan aqoonyahanada wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalkan Uganda madaxda ururada ardayda Soomaaliyeed oo qaybsanaha warfaafinta safaaradda Soomaaliya iyo marsharaf kale kulankan dood wadaagga ah oo inta badan looga doodayay doorka aqoonyahanka kaga aadan nabadda Soomaaliya ayaa waxa uu horeyn soo dhaweeyay marsharaftii ka soo qayb gashay kulanka gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Cavendish Maryan Axmed Maxamed marka aada ku soo dhaweynaya jaamacadda Cavendish adiga iyo xubnahaagaba inta kadib waxaan rabaa inaan mahadceliyo ardayda dhammaan ka soo qayb gashay ururkan ka soo qayb gashay munaasabadan looga wada hadlayo wacyigelinta waddanka si looga qayb qaadan lahaa aada u soo dhaweynaya ku soo dhawaada ururka iyo jaamacadda xafladeena way noo furan tahay mahadsantiin dhamaantiin dhanka kale gudoomiyaha ururka wacyigelinta nabadda Cabdirasaaq Maxamed Cabdulle ayaa sheegay in ururka wacyigelinta nabadda uu mar walba diiradda saari doono la dagaalanka fikirka xagjirka qabyaaladda iyo wacyigelinta bulshada ururkan sababo ayaan u asaasanay oo nagu dhaliyay inaan asaasno dhibaatada ugu weyn ee dalkeena ka jirta waa arrimaha argagixisada arrimaha qabyaaladda iyo siyaabo kale oo nabadgelyo daro kale ka jirta dalka ururkan focuska waxaan saaraynaa inaan afkaaraha qaldan ee isdiidan ee dalka ka jira oo nabadda ka hor imaanaysa inaan ku wacyigelino bulshada siday ugu hortagi lahaayeen barnaamijyada aan qabanno waxaa ka mid ah ilaa 34 barnaamij aan u diiwaangelsan 34kaas barnaamij ka mid ah ayaa maanta adinka idin daafurayna oo la yiraahdo doorka ardayda ay ku leeyihiin siday ugu qayb qaadan lahaayeen nabadda dood dheer kadib aqoonyahanadii xaadirka ku ahaa kulanka ayaa soo saaray dhowr qodob oo asal u ah nabadda Soomaaliya waxayna sheegeen in loo baahan yahay in bulshada laga wacyigeliyo qabiilka in lagu dhaqmo dastuurka u yaala dalka in la helo cadaalad iyo kala dambeyn loo dhan yahay iyo inay bulshada waxbarasho hesho qaabkan ayay doodaha u dhacayeen iyadoona group walba uu ka doodayay habka ama nooca Soomaaliya nabadda lagu soo dabaali karo Yusuf Maxamed Macalin Kashmir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Kampala